حزب السياسيات ككلمية وما أنت شرب بلارن كو قبتي جامعة كوين ماري مقالة لندن أيها waxay ku soo bandhigeen barnaamijkooda siyaasadeed ee ay doonayaan inay Soomaaliland ku dhaqaan hadii ay hoggaanka ku guuleystaan mas'uuliyiinta xisbiga ee wadankan Ingiriiska ayaa khudbado kooban halkaasi ka jeediyay hogayaha arrimaha bulshada ee kulmiye Dr. Cabdi Awdaahir ayaa isagoo sharaxaad ka bixinaya waxa ay ka qabanayaan caafimaadka iyo waxbarashada waxa hadaladiisii kamid ahaa siyaasadda caafimaadka waxa kamid ah inuu sameeyo National Drug Authority qoroyin dawooyinka license hadaan iyagu bixinin aan drug authority la yiraahdo iyaga license bixinaya dawada la soo iibinayo meesha laga soo iibinayo iyo cidda soo iibinayso way ogyihiin qof walba waxa qof aan license ka haysan dawo ma keenayo dalka Soomaaliya waxa isaguna halkaasi mas'uuliyiintii ka hadashay kamid ah Axmed Cali Goodir oo xubinka ahaa guddigii doorashooyinka hore siyaasadda kulmiye waxa kamid ah barnaamijkiisa habayn deganaansho siyaasadeed oo si dhab ah uga tarjumaysa hanashada sugidda ammaanka gudaha dalka sidoo kale waxa halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa isaguna ka jeediyay gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland mudane Axmed Xaaji Cali Cadami eedda shacbigu wax wadan buu ku leeyahay marada firika nin marka horeba la fiilay la tuujiyay aqoontiisa way aragnimadiisa umaduhu soo maray xadaafirtu ka soo dabaashay nin sida loo imtixaano la tuujiyo mooyaane kursigu ciyaar la isugu dhiibo ma aha dhaxalkeedii halay ku dhac Soomaaliland حتى وحيابي مستقبل كذا وقولوا ما أنت عكوا كشريان. كنت حفلة غرف بدن بهذا كم إذا حفلة غرف بدن اللي أكد على لندن وكل ما يقصده وحق كم إذا هذا كيس ده رنتي الرأي ده كبر يبتدأ يرى إنك استوى عن يرتب يغيب تتمر بإنه رنتي مقنعين وأنا برنامج كم إذا هاين ليس كتمر كأنا كشرين ليس كشرين تمر حدنا تمر كتبقى ساقب كلاي أدي بما سيهين خلاص ساق مقام سيء خلاص ساق. جبدي شركة وحنا فرصته هلا إننا ندور سؤالات ويدينه مدن أحمد حاج علي عدمي وكم إذا هات المسؤولين توصل رئيس حزب كلمية isagoo ugu horeyn ka jawaabay su'aal ku saabsaneed waxa ay daaran tahay wufuud kulmiye ah oo Washington iyo Brussels shir hadda kaga qayb galaya waxaanu yiri hadda waxay og yihiin oo wada murashaxiin saddexda xaafadka iyo mucaaradku status isku mid ah bay leeyihiin maanta mar haday murashaxiin yihiin وكيرتكر government oo kale bay markaan qoraysaa dawladda jirta therefore kii mustaqbalka la filayay ilaahay baa ka warqaba laakiin iyaguna iyaga ifaalahooda yaqaan dabadeedna cid ay hadda ka cadhaysiinayaan ma jirto qorada horena way arkeen haddana waxay arkeen mucaarad reer Soomaaliland waxay aaminsan yihiin inay mustaqbalka ra'iisul wasaaraha mustaqbalka hadii uu xisbiga kulmiye talada ku guuleysto arintaas bal hadda faahfaahin naga sii arintaas hadda waa out of question xisbiga waa siriisu leeyahay anigu hadda waxaan mabsuud ku ahay oo ku sheegay iska daar ra'iisul wasaarenimo inaana wasiir noqon oo aan isbedelka ka qayb galo jihadka isbedelka ka qayb galo anigu Axmed Caadigayga ah baan nabadgelyo wadankayga ku joogaya ummadaydan aan sharaf ku leeyahay marka anigu nin mansab lagu soo jiidanayo ama laga jiidanayo hadda ma aan aad baad mahadsantahay kaasina waxa uu ahaa mudane Axmed Xaaji Cali Cadami gudoomiyaha hore komishanka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ka tirsan madaxda sare ee xisbiga talada xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye